duhur wanaagsan markale dhamaantiinba dhageystayaal aan ku bilaabnay ilaa 6 qof ayaa saaka siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Muqdisho. qarax wadada dhinaceeda la dhigay ayaa ugu yaraan dilay 4 askari oo ilaalo u ahayd 2 xildhibaan oo hore iyaga laftigooda uu dhaawac soo gaaray xaafada Beexani ee degmada Shibis. suuqa Bakaarahana rag hubeysan ayaa 2 oday ku dilay gudaha suuqa. faafahinta warkaas waxa goorsii horeysay iga waramay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. Ibrahim qaraxa ayaa ahaa nooca wadooyinka hareerahooda inta la dhigo haddana meelaha fogfog laga hago waxaana la sheegay inuu qabsaday gaariga ay la socdeen 2 xildhibaan oo hore xildhibaan Muxyidiin Xasan Afrax iyo xildhibaan Caraale waxaa la sheegay in ugu yaraan 4 askari oo kamid ahayd ilaalada xildhibaanadaasi la socotay in ay qaraxaasi ku dhintay sidoo kale waxa uu dhaawac soo gaaray xildhibaan Caraale iyadoo dhaawac fudud isna uu soo gaaray Muxyidiin Xasan Afrax mid kamid ah dadkii goobjooga u ahaa ama u dhawaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa BBC-da uga warramay sida qaraxaasi u dhacay iyo khasaarihii u dhaliyay. anagoo guriga ku jira waxaan maqlay qarax aad u weyn boor iyo bere iyo balaaya ay soo gashay gurigeyga laamiga ku degan yahay laamiga gurigeyga hortiisa ay marayeen meel oo adiga un konton mitir camal ay jirto ay ahayd meesha dhan abuuro markayna qasaan orday banaanka u baxay marka aan banaanka u baxay waxaa arkay meesha abuuro iyo boor iyo baabuur xoogaa jalbiga madaxay wax yar la galay aan arkay waxaa kasoo degtay xildhibaan Muxyidiin Xasan Afrax kasoo degtay waa gartay inuu Muxyidiin yahay qalbigan ka dooday waa u tagay Muxyidiin oo say wax ku gaaray asaga iyo hal istaaf bis banaanka taagan kuwa kale baabuurka gudihiisa ay ku jiraan maskaxdooda laamigay taallay midna dhulku yaalay hal istaaf iyo Muxyidiin Xasan Afrax socday wax kale ma socon meesha markaan u tagay Xuseen Caraale gudaha ku jiray albaabkan furo Xuseen say wax ku gaadeen raawac culsa oo degmada Kaaraan baabuurkooda aan soo gaaray oo biliiska degmada Kaaraan laga xukumaan soo gaaray wixii dhaawac ahaayo halis ayaan ku qornay Xuseen Caraale iyo nin kale oo staff oo asagana aad u baabacsanay iyo darawalkii afka hore ka doonayaan baabuurka saarnay Muxyidiin Xasan Afrax asaga lagu hiiso ku socda waa fiicnay gacnaha wax ka gaareen faraha dhaawac yar ka gaaray saddexna meeyay ahayd meeshii tiile oo baabuurka laba ku jirta hal laamiga in dhawaalaba waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya qaraxyada noocan oo kala ah ee inta wadada hareerahooda la dhigo lagu bartilmaamay sida gaadiidka ay wataan saraakiisha kala duwan ee dawladda waxaana dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay degmooyin kala duwan oo magaalada ah ka dhaxay qaraxyo noocan ah toddobaadkii hore ay ahayd markii qarax wadada dhinaceeda la dhigay ay ku dhinteen gudoomiye ku-xigeenkii amniga ee deegaanka Garas Valley iyo gudoomiyihii dhalinyarada ee deegaanka iyo askar la socotay dhinaca kale saaka 2 nin oo odayaal ah oo nabadoon ah ayaa lagu dilay suuqa weyn ee Bakaaraha rakubaysan ayaana la sheegay inay gudaha suuqa ku dileen ilaa hadda ma cadda sababta raggaasi loo dilay iyo cidda dishay toona waxaad moodaa suuqa Bakaaraha in dhawaalaba in uu deganaa oo ay aad u yaraadeen ama istaageen dilalkii dadka suuqaasi lagu geysan jiray laakiin maanta dilkaas ayaa ka dhacay sida dad goobjoog ah ay BBC-da u sheegeen. aad buu u mahadsan yahay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo faafahinta warkaasina siinayay ayuu ahaa aan Facebook u galo isla qodobkaas dhageystayaasheen waxay ka yiraahdeen Maxamed Axmed oo Taleex jooga waxa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay qaraxa ka dhacay Muqdisho 4 askari ay ku dhinteen iyo waliba 2 oday iyana isla Muqdisho toogashada lagu dilay Ilaahay ha u naxariisto waana in kuwa falka geystay dawladdu gacanta ay ku soo dhigtaa cadaaladana ay marisaa amaankana wax laga qabto. Ilyas Umar Yusuf oo joogo qabri bayax ee deegaanka Soomaalida waxa uu leeyahay qaraxyada Muqdisho waa kuwa afka furtay waxaana muuqata inay maalin kasta soo kordhayaan waxaana mas'uuliyadda leh dawladda iyo laamaha ammaanka oo la rabay inay wax ka qabtaan mana muuqato in wax laga qabanayo ayuu leeyahay.